ururka danwadaag kaafi ayaa waxa uu magaalada Hargeysa ku qabtay xaflad ballaaran oo lagaga waramayo. Ururkan ayaa maanta munaasabad ballaaran oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo mas'uuliyiinta ururka danwadaag, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo agaasimaha ururada dalka. Ugu horreynna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka danwadaag kaafi magaalada Hargeysa. أبناء بلشدة مرقصة مرو مدة معدانو ملا ما قالوا وسيلة أنا ما كانوا يقولون هاي نحكيها ما هذا أبي سورينا وأنا أبي ما هذا جنب بالك ناتنا لو إن بدونين يمكن على باي أنا لو بشون هيك ما كانوا باي ده يجوا أبان بدنا لو إن بدونين أنا راني أنا فيها إنه بتلاقي شيء إنه بمرتكبه إتبي أبدا أشوف هذا السبب اللي كبرنا خير الله فيه تجد يوم حيسنا الله يبارك له هذا كمان ترى إنه لو تكلمنا لا يكلمنا أنك كلامنا مركا عايشين وها سنة إن أنا مجمع مقالة كقابة تقرب المشبه يحكم إن المسؤول أولاد مسؤول رجيا أو بيش مكلمة قالته أما لا ولا قاطع إنه شيء إنه قدر معك كنت كنا إنه شيء إنه بتفتح الغربة ولا إلهي بان هذا ما تسكله إنه أقوم بمدرسة نبتجليه ده قيمها فضل أنا جو إلهي من هذه السنة بدأت غير ما دخلت السنة ميلي شوبا من هذا علينا هي وين يجي تجيبها كذا بنتي كل هاللي نبضل أقصى حناي waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa danwadaag guud ahaan gaar ahaan dalada kaafiya oo iyadu madashan maanta ay soo casuntay waxaa farxad iyo inaan kulankiina qiimaha badan idin kala soo kulmo ama idin kala soo qayb galo runtii waxaan hambaliyaynayaa ardayda waxbaratay ee isugu jira daayirtiyo maamooyinka intaba bartay noocyada kala duwan sida cunto karinta dawaarka iyo aqoonta maadiga ah ama akademiga ah runtii aad baan idin hambalyeynaya waxaan eebaydin ka baryayaa cilmigeenu inuu noqdo mid idin anfaca idinkii qaranka Soomaaliland oo dhan dagaa wuxuu yidhi irbadal la ururiyay madax birahay dhalaan runtii lacagtu marka la sheegayay 7,500 waxay wax aad u yar oo qof kasta uu soo leeyahay toro maxay dhahay kartaa 7,500 haddana markay halkan walaashay ka sheegtay tidii 600 milyan waxa balsi waa hay'adaha qaar baa wasaaradaha dawladda qaar baa budgetkoodu bari taadamay والعجاب والرفض تصبح كتسي صارنتي وحكستو أول يسوقية إلى وحنا غكرة مرلباتك إنما أعمال بنيا وإنما مبين وابن الرسول عليه الصلاة والسلام قفكم يدي سهدوك كانوا إنه وحقفته سيدا يدون طبعا وأحاكي ويسور الجلسة وإلهي ما فضل ضيني هذه الدولة سنتين وأنا كبدي وحنين بلغ هذا يا مير كستوها تشوكا إن اللي تتاجروا qiimaha leediina sheego haday siyaasadda tahay haday ganacsiga tahay wax allaaliyo wax foodaan waa ka rabad kuwa loo footeeyo may laakiin waxa ka naxaya ragana waan u hilinayaa kuraastayna ka wada qaadaan haddii kootada la idin waayo waana hanjabaynaa sanadka anna waskiin garab taagay gurigayga iyo anaguna waxaan bala qaadaya inaan gabdhaha u codayno sanad نسيب وناك وحنا كلمي يوميا هندا iyo hablo badan oo meesha jooga bal ii warrama waan ku yidhi warbixin bay iga siiyeen dalada waxaasaan qabanaa maxaan ku lahaday maxaad u baahantahay taageero waxaan doonaynay dad badan baa noo qalinjibinaya in la taageero oo wax loo qabto walaa dawlad walaa shicib walaa cid wax noo qabatayna ma jirto marka waxaan doonaynaa cidii wax lagu tartaba diyaar baan u nahay imikana waxaan u baahanahay maxaa jeceshiin waxaan u baahanahay inaanu xaflad qabsano la noogu qalinjibinayo marka waxaan doonaynaa xafladda hudheelka iyo hawsheeda cidii naga taageer lahayd waxaan ku yidhi waa hagaag waan idinka taageerayaa wixii aan u baahan tihiin waan idin qabanayaa sidaas ayaanu dalada isku soo galay anigoo aan musharaxa ma aan weydiisan cod baa meesha yeelana ma aan odhanin laakiin waxaan aad u jecel
jecelahay haweenku inay noqdaan wax jira oo muuqda oo dadka ka muuqda oo meel walba ka muuqda oo golaha deegaanka iyo baarlamaanka iyo meel kasta ka muuqda ina ay noqdaan inay isku tashadaan inaynan ku mashquulin heblaayo maxay qaban kartaa oo xasni maxay tahay oo maxay ii soo kordhinaysaa oo ma walaalkaysiiyo oo ma naalakaysiiyo waa lagu qasaaray raggii deegaanka iyo loo doortay baarlamaanka rag badan isku dari maynee rag badan baan ku qasaarnay oon ugu dhaawacnay ayaanu warqad yar oo kaliya dawladda hoose uga baahanay saacadan baan dul taagnaa markii dambaan ku yidhi oo maa ilaahda shidaalkaa dooni maayo shaxaadkaa dooni maayo miyaadna inowday ma garatay sidaa weeyaan dumarku waxa weeyaan kuyuubay ku jiraan dhibaatay ku jiraan waxba looma qabto suulila'aan bay ku dhinteen dhibaato weyn bay qabaan dumarku bal maanta intaynu ka korno heblaayo diraca ayaa soo siiyey iyo halkeebay ka timid iyo maxay haysataa iyo qabiilkeedu waayo qolamay tahay intaynu ka korno aynu samaysana wax la yidhaha dumarland xisbiga ucid iyo xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiya midna waxbay nagama gelin way isku keendirayaan meel bay wax ku wada cunaan meel bay ku wada shaaheeyaan meel bay wax ku wada cabaan innagana madax iyo timaha isugu keenxine heblaayo waa wadani oo ma arki karo taasi waa kulmiya ma arki karo ucid maxay haysataa waa fadhiide waxaa intaynu ka korno ma samaysanaa xisbi la yidhaaho dumarland ma samaysanaayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi salaan aad iyo aad u qiimo badan ayaan halkan u marinayaa khudbadiisii qiimaa lahayd oo xisbiga ka jeediyeyna aad baan ugu mahadinayaa waxaan leeyahay ninba marbuu kursiga fuulayaaye dee qofka waxa weeyaan mucaaridku inuu ilaaliyo anigu mucaarid cid baa ka soo jeeda haddana waxa weeyaan qofka bini aadamka waxna uu qabtaa waxna uu ka tagaa haddii 24 saacadood aad dari kariso oo maanta dhan isxababoorto oo lagugu yidhaha maxaad karisay midhaxdaad ka badisay oo dhayli lagugu yidhaaho dee moralis baa u dhimanaysa markaa madaxweynuhu waxqabadkiisana ha la sheego dhaliishiisana ha la sheego wanaag badan buu qabtay ha lagu taageero ilaahay baa doortay inana markeena waa sugaynaa marba waa meerta xilku ha lagu tambaliyeeyo wuxuu qabtayna ha la sheego dhaliisha iyo cayda beersa halkaane ha laga daayo bulshooyinka somaliland ayaan u marinayaa hawada wasalaamu calaykum عمر أبو علي بلشة تيفي هرقيسة.